kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa xogta maanta oo aan markasta idinku soo gudbino qodobada ugu waaweyn ee dalka iyo dibaddiisa ka jira. fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar. qodobada ugu waaweyn ee aad maanta warkeena ku daawan doontana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo iyo wafdiga hoggaamiye gaaray magaalada Addis Ababa. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi kale oo hogaaminayo oo ayaguna gaaray magaalada Kismaayo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dekreeto ku magacaabay taliye ku-xigeenka xoogga dalka iyo taliyaha ciidamada lugta. sidoo kale waxaad daawan doontaan madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo isaguna gaaray magaalada Kismaayo si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. hanti dhowrka guud ee qaranka oo sheegay in warbixintii uu soo saaray siyaabo khaldan loo turjumay. qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka xogta maanta. inuu ku bilaabano daawadayaal madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Addis Ababa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa la sheegayaa in ay gaareen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa garoonka diyaaradaha ee Boole ee magaalada Addis Ababa waxaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Itoobiya. madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ka qayb gali doonaa kulanka shir madaxeedka wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD ee ka furmaya magaalada Addis Ababa. magaalada Addis Ababa ayaa waxaa ku sugan madaxda dalalka koonfurta Suudaan, Kenya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan iyo madax kale. daawade wali waxaa naga daawanaysaa barta YouTube-ka aan ku leenahay ee xogta maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu dekreeto ku magacaabay taliye ku-xigeenka xoogga iyo taliyaha ciidamada lugta. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dekreeto uu soo saaray waxa uu ku magacaabay taliye ku-xigeenka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidamada lugta. dekreetada ayaa waxaa lagu magacaabay sareeye guuto Maxamed Cali Bariisi oo noqonaya taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka. sidoo kale waxaa taliyaha ciidamada lugta loo magacaabay sareeye guuto Cabdulxamiid Maxamed Dirir. taliye ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka Master Bariisi ayaa ah nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah waxaana lagu tilmaamay in uu yahay nin karti u leh in uu hawsha ciidanka gudan karo waxaana la sheegay in uu yahay mas'uul aad u firfircoon. magacaabistan ayaa sida la sheegay waxa ay dhammaystiri doontaa qaab dhismeedka hoggaanka ciidanka xoogga dalka tan iyo markii isbedel lagu sameeyay bishii Agoosto isla markaana loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage. talaabadan ayaa ka dhigan in hoggaanka ciidamada xoogga dalka loo dhiibay saraakiil dhalinyaro ah oo aqoon u leh waa sida uu sheegay xafiiska dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan midka madaxweynaha. wadayaal wali waxaa naga daawanaysaan barta YouTube-ka aan ku leenahay ee xogta maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. barqanimadii maanta ayaa magaalada Kismaayo waxaa gaaray wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdigiisan uu hogaaminayo ayaa waxaa magaaladaasi ku soo dhaweeyay sida aan hore idinkugu sheegaba madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. ujeedka Deni uu u tagay Kismaayo ayaa ah ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka madaxweyne Axmed Madoobe iyadoo Kismaayo ay ku wajahan yihiin mas'uuliyiin kale oo intaas ka badan. ammaanka Kismaayo ayaa ah mid aad loo adkeeyay. ciidamada ayaa u diyaar garaysan soo dhaweynta mas'uuliyiintan ka kala imaanaya dalka iyo dibaddiisa. waa tahay daawadayaal wali waxaa naga daawanaysaan xogta maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar. hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa waxa uu sheegay in warbixintii uu soo saaray siyaabo khaldan loo turjumay. hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye oo maantay mar kale la hadlay saxaafadda walow hore uu warqad u soo saaray ayuu maantay wuxuu si toos ah u soo hor istaagay saxaafadda waxa uuna sheegay in warbixintii uu shalay soo saaray ay ku saabsaneed warbixin sanadeedka 2018 si qaldanna ay u fasirteen dad badan.
hanti dhowrka ayaa dhaliilay sida ay loo fasirtay warbixintan shalay uu soo saaray oo u qorneed qaab uu sida uu sheegay lacag malaayiin dollar ah ay maqan tahay oo qaab sax ah aan loo isticmaalin. warbixinta aan soo saaray dad dana gaar ah leh ayaa si gaar ah u fasirtay kumana jirin lacago la lunsaday ayuu yiri hanti dhowraha guud ee qaranka. waxa uu dadka qaar ku dhaliilay in warbixinta aysan akhrin sidii loo baahnaana aysan u fasirin oo qaab kale oo qaldan ay u fasireen warbaahinta Soomaalida ayuu hanti dhowruhu waxa uu ka dalbaday in ay qaab sax ah u shaqeeyaan. adduunka oo dhan ayaa waxaa ka jira markii warbixin noocan oo kale ah la soo daabaco in dadku si qaldan ay u fasirtaan lagana faa'iideysto. waxaana ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed iyo warbaahinta in ay warbixintan akhristaan ayna dhamaystirtaan ayuu yiri hanti dhowraha guud ee qaranka. ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay in dowladda federaalka ee Soomaaliya looga baahan yahay in laga faa'iideysto warbixintan uu soo saaray laga soo saaray hab maamulka maaliyadda dalka. waxa uuna sheegay talada iyo waxyaabaha qaldamay ee warbixintan lagu sheegay in mar dambe aysan qaldamin oo loo baahan yahay in la saxdo. daawadayaal wali xogta maanta ayaan naga daawanaysaan barta YouTube-ka aan ku leenahay. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar markana